Kusoo dhawaada daawadayaal qaybta labaad ee warbixinta aan uga hadlayno Xuutiyiinta waxaana qaybtan diiradda ku saaraynaa awoodda iyo saameynta Xuutiyiinta ee waqtigan meelaha muhiimka ah ay gacanta ku hayaan iyo weeraradii ugu halista badnaa ay fuliyeen muddooyinkii ugu dambeeyay markaanu ka hadlayno awoodda iyo saameynta Xuutiyiinta sanadkan 2025 Xuutiyiinta waxay gacanta ku hayaan dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca iyo qaybo badan oo ka mid ah buuraha dalka. Kooxdu waxay sidoo kale awood ballaaran ku yeelatay dhinacyada militariga iyo siyaasadda ee gobolada ay maamusho halkaas oo ay ka sameeyeen dowlad aan rasmi ahayn oo xukunta arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo amniga. Awoodda militari ee Xuutiyiinta ayaa si weyn u korortay tan iyo markii ay bilowdeen inay la dagaalamaan dowladda Yemen. Kooxda hadda waxay haysataa hub casri ah oo ay ka mid yihiin gantaallo, diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka iyo hub fudud oo heer sare ah. Waxay sidoo kale ay hormariyeen awoodda ay ku fulinayaan weeraro xeeladaysan gaar ahaan gantaallo iyo diyaarada daroon. Haatan goobaha ay maamulaan waxaa ka mid ah magaalada Sanca oo ay ku leeyihiin xarunta siyaasadda iyo maamulka, magaalada Sacda oo iyaduna hooy u ah kooxda Xuutiyiinta, halka Xudayda oo ah magaalo xeebeed ay u adeegsadaan in laga soo dejiyo caawimaadda bini'aadanimo ee Yemen loo soo diro, waana goobta ay isku hayaan Xuutiyiinta iyo isbahaysiga Sacuudiga. Haddaba maxaa laga xusi karaa weerarada muhiimka ah ee Xuutiyiintu fuliyeen sanadihii ugu dambeeyay? Xuutiyiintu waxay fuliyeen weeraro badan oo qabsaday indhaha warbaahinta caalamka, kuwa oo ka dhan ah Sacuudiga, Imaaraadka iyo danaha Mareykanka ee gobolka. Waxaana ka mid ah weerarkii Aramco ee 14 Sebteembar, kaas oo loo adeegsaday diyaaradaha droniska laguna beegsaday 2 xarun shidaal oo waaweyn oo ku yaala magaalooyinka Abqaa'iq iyo Quraa'is ee bariga Sacuudiga. Weerarkaasi wuxuu saameeyay qayb ka mid ah wax soo saarka saliidda Sacuudiga, wuxuuna sababay koror ku yimaada qiimaha saliidda ee caalamka. Inkastoo Xuutiyiintu ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi, Sacuudiga iyo Mareykanka waxay ku eedeeyeen Iiraan inay ka dambeeyeen. Tan iyo bilowgii faragelinta isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen, Xuutiyiintu waxay fuliyeen weeraro gantaallo iyo daroon oo lagu qaaday bartilmaameedyada Sacuudiga oo ay ka mid yihiin garoomada diyaaradaha, saldhigyo militari iyo kaabayaasha saliidda. Weeraradan waxay qayb ka ahaayeen xeeladda Xuutiyiinta ee ka dhanka ah duqeymaha isbahaysiga ka wadaan Yemen iyo cadaadiska lagu saarayo dowladda Sacuudiga inay wada hadal bilowdo. Bishii Oktoobar 2016, Xuutiyiinta ayaa weerar gantaallaha ku qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka US Amazon oo ku sugan badda cas. Inkastoo gantaalkaasi ay ku guuldareysteen, dhacdadani waxay noqotay mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu horreeyay ee u dhexeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada Mareykanka. Weerarkaasi wuxuu sababay inuu Mareykanku ka jawaabo, isagoo duqeeyay xarumaha raadeerka ee Xuutiyiinta waxay sidoo kale fuliyeen weeraro gantaallo iyo daroon isugu jira oo lagu beegsaday saldhigyo militari ee Mareykanka ku leeyihiin dalka Ciraaq, taas oo qayb ka ahayd ololahooda ballaaran ee ka dhanka ah joogitaanka militari ee shisheeyaha ee gobolka. Tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duqeymaha marinka Gaza bishii Oktoobar 2023, kooxda Xuutiyiinta waxay weerareen in ka badan 100 markab oo ku jiraan kuwa laga leeyahay Israa'iil, Mareykanka iyo Ingiriiska, iyagoo uga falcelinaya duqeymaha Israa'iil ay ku hayso Gaza iyo taageerada ay reer galbeedku la garab taagan yihiin Tel Aviv. Weeraradan dhammaantood waxay ka dhacayeen badda cas, marinka Baabul Mandab, gacanka Cadmeed iyo badweynta Hindiya. Celceliska weeraradan oo noqday maalintiiba 2 jeer ayaa carqaladeeyay isu socodka badda, iyadoo maraakiibta caalamka ay u leexdeen dhanka Afrika si ay uga fogaadaan khatarta ka jirta aaggan ee ay Xuutiyiinta kala kulmi karaan. Si kastaba, Xuutiyiinta oo markoodii hore ahaa urur diimeed ayaa isu beddelay awood muuqata marka la eego dhanka siyaasadda iyo cududooda ciidan, waxayna wax ka beddeleen muuqaalka siyaasadda dalka Yemen. Isticmaalka gantaalada iyo diyaaradaha daroonka ayaa ururkan ka dhigtay inay noqdaan koox saameyn ku leh gobolka, halka doorkoodu siyaasadda uu yahay mid kobcaya, iyagoo leh aragti adag oo ka hortagaysa faragelinta dibadda, gaar ahaan Sacuudiga iyo Mareykanka. Mustaqbalka Yemen weli waa mid hubanti la'aan ah, iyadoo Xuutiyiinta ay ku naaloonayaan gacan ku haynta dhanka waqooyi, halka dowladda ay caalamku aqoonsan tahay ay wajahayso xaalad adag oo dhanka koonfurta ah, maadaama wadahadallada nabadda ay hakad ku jiraan. Dagaalka ayaa u muuqda mid sii socon doona, waxaana awoodda Xuutiyiinta ee Yemen ay sii ahaan doontaa mid go'aan ka gaarta siyaasadda iyo amniga gobolka.